bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka halku dhig news qodobadaad ku daawad doontaan waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo soo bandhigtay magaca hogaamiyihii weerarka Alshabaab ee Wajeer ciidamo uu mushaar ka maqan yahay kana tirsan xoogga dalka oo ku hanjabay inay ka soo bixi doonaan furimaha dagaalka baarlamaanka Puntland oo xasaanadii kala noqday gudoomiyihii kol hore ay ka eriyeen xilka gudoomiyaha wakiilada Puntland dhooba daareed haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 10ka bisha 12aad sanadka 2019 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilowna dalka Kenya dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay magaca hogaamiyihii weerarka Alshabaab ee Wajeer Sirdoonka Kenya ayaa shaaciyay magaca macallin iskuul deegaanka ka soo jeeda oo hogaaminaya weerarka Alshabaab ee Wajeer Sirdoonka dowladda Kenya ayaa shaaciyay macallin iskuul deegaanka ah oo la sheegay inuu hogaaminayay weerarkii Jimcihii hore ka dhacay Wajeer oo lagu dilay 13 qof oo u badnaa saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya sida laga soo xigtay warbaahinta Kenya ninkan ayaa lagu magacaabaa Maxamed Xuseen Xasan wuxuuna macallin ka ahaa dugsi hoose oo ku yaala degmada Wajeer wuxuuna muddo kale hore gudaha Kenya geeyay maleeshiyooyin ka tirsan Alshabaab iyadoo la qabtay dad ay ka mid tahay xaaskiisa oo su'aalo la weydiiyay weerarkii Wajeer oo ay sheegtay dagaalamayaasha Alshabaab kana mid ahaa kuwa ugu khasaaraha badan oo lagu dilay 8 sargaal oo ka tirsan ciidamada booliska Kenya weerarka waxaa lagu qaaday bas ku socday Maandheere waxaana jidka u galay maleeshiya ka badan 15 nin oo hogaaminayay Maxamed Xuseen Xasan kuwaasoo dadkii baska saarnaa u kala saaray muslimiin iyo kristaan kadib laayay dadkii aan muslimka ahayn ururka Alshabaab ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay gudaha dalka Kenya waxayna dhowr jeer ka fuliyeen gudaha Kenya weerar khasaare badan geystay Kenya waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan howlgalka Amisom waxayna Alshabaab sheegtay inay joojin doonto weerarada ay ka fuliso Soomaaliya marka ay ciidamada Kenya ay ka baxaan Soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfurta Soomaaliya ku yaala kana arrimiyo maamulka Jubbaland oo kala ah Gado iyo Jubbada Hoose markaana daawadayaal gobolka Shabeellada Hoose ciidamo uu mushaar ka maqan yahay kana tirsan xoogga dalka ayaa ku hanjabay inay ka soo bixi doonaan furimaha dagaalka boqolaal ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya oo wali aan qaadan mushaarkii ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne Farmaajo ayaa ku hanjabay inay ka soo bixi doonaan difaacyada hore ee dagaalka ciidankan oo xoogooda ku sugan gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in wali aysan helin mushaarkii ay ku shaqeynayeen ee bishan December halka qaarkoodna ay door bil ka maqan tahay mushaarka ayaa inta badan la bixi jiray 28 bisha dhamaadka ay ka horeysa bisha ay tahay in kowdeeda la qaato mushaarka hase yeeshee bisha December oo maanta mareysa 10 ayaa wali qaar badan oo shaqaalaha dowladda ka mid ah iyo ciidamada xoogga dalka la siin mushaarkoodii waxaan ku suganahay furinta hore ee dagaalka ee degmada Owdigle habeen kasta waxaan martigelinaa weerarada Alshabaab walina ma helin xuquuqdeeda ayuu yiri sargaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo la soo xiriiray caasimadda online warkan daabacday sidoo kale ciidamada booliska iyo asluubta ee ku sugan Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ayaa wali qaadan mushaarkooda waxaana isoo taraya qayladhaanta ka soo baxaysa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya wali xukuumadda Soomaaliya kama aysan jawaabin sababta ilaa haatan loo bixin laayahay mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda balse sargaal sare oo ka tirsan bangiga dhexe ayaa caasimadda online u sheegay in lacag badan bangiga looga bixiyay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan loona qaaday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo dowladda ay ka wada dhismaha maamulka Galmudug macada haddii lacagta bangiga dhexe laga bixiyay ay tahay tii ay ahayd in lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada dowladda xubnaha ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa noo xaqiijiyay in bishaan ay suurtagal tahay inaysan dowladdu bixin doonin mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada xilli lacag badan loo qorsheynayo in lagu bixiyo doorashada Galmudug dhawaana la filayo inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb markaana haddii aan fiirino daawadayaal Puntland gaar ahaan magaalada Garowe caasimadda Puntland xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa xasaanadii xildhibaannimo kala noqday Cabdixakiin Maxamed Axmed dhooba daareed oo ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaasi kulan ay xildhibaanadu ku yeesheen magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal ahna caasimadda maamulka ayaa waxa la horgeeyay mooshin xasaanada
looga xayuubiyey dhoobo daareed kaasoo ay gudbiyeen 35 mudan oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland ilaa 40 xildhibaan ayaa kulanka goobjoog ka ahaa waxaana uu codeeyay in xasaanada laga qaado mudanahaasi 39 xildhibaan halka uu ka aamusay gudoomiyaha golaha guddoonka baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta oo gacantaag ahayd wuxuuna sheegay inuu sax yahay go'aankaasi mushinkan waxa gadaal ka riixayay xukuumadda Siciidani uu hogaamiyo uu khilaaf kala dhaxeeyay dhoobo daareed sida caasimada online horay ugu xaqiijiyeen ila wareedil uu kalsoon yahay sababta ugu weyn ee xasaanada looga qaaday Cabdixakiin dhoobo daareed ayaa lagu sheegay inuu ku xadgudbay dastuurka iyo xuduudaha maamulkaasi sidoo kale waxa lagu eedeeyay inuu wada dhismaha maamul cusub oo ka madax bannaan dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland xildhibaan Cabdixakiin dhoobo daareed oo xilka gudoominimo laga qaaday 7 bishii hore November ayaa haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaas uu ka wado dhaqdhaqaaq siyaasadeed dhoobo daareed ayaa haysta taageerada shacab badan oo ku dhaqan gobolada Sool iyo Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya kuwaas oo si diiran ugu soo dhaweeyay goboladaasi kadib markuu iskaga tagay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal daawadayaal waa naga inta warkii aad kala socoteen hal ku dhig news haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channel